السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمها بدن وسلامتين مركز دون الضافة كجوكتان كسو دواد برنامج كي أخبارات كأفلام تقدم بورارك أنا وكسو قادم ضمان شركتها كلا دوان دنكاسي دلك هندي سيدو كلا داودياش قيمها بدن انت هنقول قلن برنامج كينا مركو هركسو دواد channel كينا فضلا هديت مركو كوغو هوريسات صوب بقوة channel كينا فضلا سبسكرايب نوصار لايك صار مقال كان وايد ضد بدن وقاريان أركتدا نكون متير نقرب marka hore daawadayaasha qiimaha badan aan ku bilaawno qodobkeena koowaad Superstar Tel Aviv ayaa aragtida koowaad ama kaartada koowaad ka soo bandhigay filimkiisa la magacaabo Beastie ka hor dhalashada Tel Aviv jilaagan ayaa baraha bulshada kula wadaaga taageerayaashiisa aragtida koowaad ee filimkiisa soo socda sidoo kalena wuxuu shaaca ka qaaday magaca filimkan waxaa director-ka ninka lagu magacaabo Nelson Dilip Kumar sidoo kale filimkan waxaa qayb ka ah Buja Hiji wuxuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuuna la wadaagay taageerayaashiisa aragtida koowaad filimkaas oo lagu magacaabo Beastie waana kaartada horteena ka muuqata sidoo kale xarakaad aan inna bacad ahayn ayaa ka muuqata Superstar-kan kadib guushii filimkiisii weynaa ee Master ee tiyaatarada la saaray horaantii sanadkan taageerayaasha actor-kan ay xiis u qabay in lagu dhawaaqo jalaagan mashruuciisa xigawaana lagu dhawaaqay filimkaas oo waxaa loo bixiyay magaca Beastie sidoo kale kaartadan horteena ka muuqata ayaa laga soo bandhigay filimkan ay jadwalkiisa koowaad la duubay horaantii sanadkan 31 bishii Maarso isla sanadkan jalaagan ay jadwalka koowaad ku soo gabagabay dhankaasi Georgia waxaa jadwalkiisa labaad laga ambaqaad doona isla magaalada Janay ee xarun u tahay dhankaasi Tamil Nadu aan halkaas ugu gudubno qodobka kale ee muuqda daawadayaasha qiimaha badan waxa waaye filimka Baramaster ee wada hogaaminaya Rabir Kapoor iyo Ali Abad ayaa jadwalkiisa ugu dambeeyay duwistiisa ka bilaabtay magaalada Budapest filim sameeyaha lagu magacaabo mukhrij filimkiisa sida weyn loo wada sugay ee lagu magacaabo Baramaster ay wada hogaaminayaan Rabir Kapoor iyo Ali Abad ayaa jadwalkiisa ugu dambeeyay lagu duubay magaalada Budapest filimkan oo ay shaqadiisa soo bilaabtay sanadkii 2018 sidoo kale filimkan ayaa laba qaybood laga sameeyay filimkan ayaa shaqadiisa istaagtay kadib markii uu dilaa cudurka safmarka ay corona sidoo kale cudurkan ayaa dalka Hindi si xun u anfayay si kastaba ha noqotee daawadayaasha qiimaha badan filimkan ay jadwalkiisa ugu dambeeyay la ambaqaad duwistiisa sidoo kale filimkan waxaa door muhiim ah ku leh aktarada Amitabh Bachchan Nagajonya iyo Munay Roy sidoo kale daawadayaasha qiimaha qodobada barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxaa kamid ah Akshay Kumar iyo Ahan Shetty ayaa ku midoobi doona mashruuc xiga soo saaraha lagu magacaabo Sajid Nadwala sidoo kale wiilkan waxa aabaha roga cadaaga Sunil Shetty soo saar Sajid Nadwala labadan actor waxay u sameynayaan laba film Akshay Kumar wuxuu hogaamiye koowaad ka yahay filimkan lagu magacaabo Bachchan Bandi halka uu soo saarahana qaatay mas'uuliyadda ku aadan soo can bixinta actor-kan Ahan Shetty maxaa yeelay actor-kan filimkiisa ugu hore uu shaashada ku soo gali doono waxa soo saarka Sajid Nadwala filimkan waxa lagu magacaabo Tadab maanta majaladaha ka soo baxan dalka Hindi waxay daawacayaan warka ku aadan in labadan actor ku midoobi doona hal mashruuc markay ka soo farxaystaan duwista labadaas filim warkan waxa xaqiijiyay ila dooreeyo u dhow soo saarahan kadib markuu arkay awoodda labadan actor ay ku soo bandhigeen labadiisa filim soo saarahan wuxuu qaatay go'aan ku aadan in hal filim uu wada dhiibto jilayaashan waxaan sugnaaba in warkan si rasmi ah shaaca lagu qaado John Abraham ayaa soo gabagabay duwista filimkiisa weyn Satami Fajayata 2 John Abraham oo jalaa ka filimka Satami Fajayata 2 oo markii hore qorshaha ah in tiyaatarada la saaro filimkan 13 bishii May aan ka soo gudubnay Ciidul Fidriga filimkan ayaa baaqday kadib markuu dalka Hindiya galay feeska labaad ama mowjada labaad ee corona maxaa yeelay gabi ahaanba waxa la xiray tiyaatarada sidoo kale aflaam waaweyn ayaa baaqdeen oo la daawan lahaa bilaha May iyo June si kastaba ha ahaatee waxa dib tiyaatarada 100% loo furi doonaa bisha soo socota ee July filimkan waxa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa waqtiga la daawanayo waxayna u badan tahay in la daawan doono mashruucan bisha Agosto isla sanadkan 2021